بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامة دمان دليرت قيمة يقايها لا إنما إياها بلا كل دون دافع الدنيا mar labaad ku soo dhawaada Awdal College of Communication oo ahayd xaruntii aanu ka baranaynay information technology-ga especially Cisco networking staff. Marka maanta waxaan sameeynaa configuration-keennii ugu horreeyay haddii Ilaahay yiraahdo software yar oo packet tracer la yiraahdo ayaan ku sameynaynaa. Marka waad ila soconaysaan waxa kale oo sameeyay waxaan soo diyaariyay chapterada hadii Ilaahay yiraahdo ama casharada lessanada aan ku dhigan doono. Actually not chapter ma waska chapter actually ba laakiin casharadii inta badan xoog loo dhigan yaani mesela theory-gii badan u baynaan galaynin marka practical baan ku bedelaynaa theory-gii faraha badan lahaa. Marka theory-ga hada af Soomaali waan ku sharxi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo practical waan ku sameyn doonaa. Marka waxa way practical-keena badan sida marka practical-kaagu bato theory-ga markaad akhridid wuxuu isku ka qabanayaan. Hadii laakiin maanta oo dhan sheeko lagaaga sheekeeyo oo theory-gii aad ma aragtay halkii la inooga baahnaa ay gaari weydo yaani mesela practical-ka uu gaari waayo theory-gii ma aragtay waa liidanayaa. Marka theory-gii marka waa liidanayaa. Marka theory-ga aad akhrido theory-ga hadaad ku hormartid ba mar walba ka adag hadaad practical ku hormartid. Marka sidaas ayaan ma aragtay hadii la dhaw galaynaa. marka sidaas ah bal hala ila socdo. Bismillahir Rahmanir Rahim waxa weeyaan casharkan buugan baa soo soo diyaariyay dhowrkan page oo magaranaysa waxaan dhigan doonaa hadii Ilaahay raado CCNA oo dhan aan kaga sheekeynayo. sidaan soo sheegay hadalkaygu waa soo badnaa OSI model baan soo marnay TCP/IP baan soo marnay subnetina oo video badan ku isbandhig gareynaa soo marnay ama ku kharash gareynaa ama waqti badan geliyay. hadda ma garanaysaa hadii la dhaco casharkeenu wuxuu noqonayaa lab. marka bal aan yar wada eegno Cisco study guide baa la yiraahdaa ma garanaysaa book ma aha dhowrkan page noogu tala galay inaan wax ku dhigano. topic-yada meeshan aan ku cover gareyn doonina waa kuwan soo socda ayaan idhi. objectives-ka lesson 1 waxaan ku sameynaynaa hadii la yiraahdo introduction of packet tracer software iyaan ma garanaysaa hadii la yiraahdo aan bari doonaa yaani sida loo install gareeyo yaani sida loo arko install-ka actually Google ma tagaysaa packet tracer ma ku qoraysaa latest version waa ku soo download gareynayaa kadibna casharada aad ku bilaabanaysaa waxa dhaba isaga maba leh laakiin sida ma aragtay routerada switchada lagu dhex isticmaalo iyo computer-ka inuu tusi doona hadii la yiraahdo lama garanaysaa laba router baan isku xidhanaa marka laakiin maanta laba router isku ma xaleena waa hal router sababtoo ah laba router hadan ilaa wax kale inaga dalban doonaa. marka waxa kale ayaan ma aragtay casharka kale ayay ku jirtaa. marka hal router baan isku xidhanaa iyo hal switch iyo laba computer inay isgaaraan waan eegaynaa. marka waxaan sameeynaa hal router iyo laba switch ma garanaysaa two LAN switch laba switch iyo laba computer aan isku xidhanaa. IP address-na assign baan u sameeynaa. IP address static waxa la yiraahdo waa IP address oo joogta yaani mesela jooga oo isagu automatic ahayn. waxa ka soo horjeeda af Ingiriisiga static-ga dynamic waxa weey waa automatic static-na waa manual haddaan sida u dhigno. marka wixii ka dambeeyna waxaan hubinaynaa bal inay isgaaraan oo spin gareeyaan hadii la yiraahdo casharka maanta. casharada kale ee maanta ka dambeyn doonina casharka labaad wuxuu noqon doonaa waxa la yiraahdo introduction to static route-ka ayaan dhigan doonaa sida uu shaqeeyo wuxuu awqaato waxaad ma garanaysaa iyo casharadiisa. some labisna waan ka sameyn doonaa static-ga oo ma garanaysaa hadii la yiraahdo yaani mesela waxa uu qaato iyo tusaale ahaan administrative distance waxa la yiraahdaa jira oo ka qaato hal markaas uu hasha uu halka u qaatay xawanaygi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. casharka saddexaad waxaan ku baran doonaa red version 1 ayaan ku baran doonaa iyo version 2 waa first routing protocol weeyaan. ma garanaysaa routing information protocol ayaa la yiraahdaa waa kii ugu horreeyay ee baranayno. hadii la casharkeena saddexaad ayuu noqonayaa sida ay darawado juice the bath say yaani mesela network-yada for example haduu router laba network ay ku xiran yihiin labada mid buu dooranayaa. marka sida markuu ku shaqeynayo ribta sida u doorto version-ka sida u doorto yaani labada line sida u kala doorto iyo waxyaalaha sababaha uu ku doorto wax walba criteria ay leeyihiin. criteria uu ku doorto ayaan sheegi doonaa hadii la yiraahdo. metrics ayaa la yiraahdaa hub countigeegu
يعني وحيالها شيء دونه هل إلى 15 اللي حي 15 وحي كبلنا waxa loo qadariyaa unreachable marka waan sheegi doonaa hadii ilaahay yiraahdo casharka dambeena aad ugu dhaadhici doonaa casharka afraad iyo IGRB baan ku gali doonaa protocolka labaad casharka shanaadna OSPF baan ku gali doonaa waa protocolka saddexaad hadii ilaahay yiraahdo casharka lixaad waanka ayaan ku gali doonaa waa wide area network casharka toddobaadna waxaan ku gali doonaa route summarization wax la yiraahdo oo ma garanaysaa hadii ilaahay yiraahdo aan dhigan doono imika yani ma dhaxgalayo laakiin mar walba marka waqtigiisa la joogo ayaan dhaxgalaya DHCP baan ku dhigan doonaa hadii ilaahay yiraahdo casharka sideedaad oo dynamic host configuration protocol ah casharka sagaalaadna access listing ayaan ku dhigan doonaa oo real isaguna muhiim ah oo standard iyo extended labadaba ku dhigan doonaa laakiin named iyo dynamic iyo access listing waa badan yahay ashirka tobnaad waxaan ku dhigan doonaa waxa network address translation baan ku dhigan doonaa oo really waxa network maanta inoo hayaba ah ka ugu dambeeyo kan 11aadna waxaan ku dhigan doonaa security device manager hadii ilaahay yiraahdo markaas ila socda ku soo dhawaada hadda hadii ilaahay yiraahdo packet tracerkii marka packet tracer halkaas aan u galaynaa halkan buu iskaga jiraa marka waxaan sameeynaa hadii ilaahay packet tracerkii baan sida u sameeynaa hadii ilaahay yiraahdo waa kan waan weyneeyay routeradu saas meelaha iskaga daadsan yihiin waa soo qaadanaysaa markan baad dhiganaysaa waa drag and drop ma garata xabadii routerkii xabadii switchkan u baahnayn waa drag and drop saas baa loo dhigayaa switchka 2950 halkaas uu kaaga sheegayaa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad labadii computerna waa kuwaas ma garata end devices baa la yiraahdaa marka waa kuwan labadii computer in laptop iyo computer caadi aan ka kala dhigaynaa baadii la yiraahdo ma garata xarkahuna waa kan xarka halkeer baa taabanaysa xarka marka hadii ilaahay yiraahdo wixii isle hadda ereyga eeg wixii isle for example router iyo router switch iyo switch router iyo router iyo computer waxa la isku horta router iyo router waxa la isku wada xariga la yiraahdo cross over inta dalka taabto kale cross over baad ka yara hoos ku arkaysan cover cross over macnaheedu waxa weeyaan xarigaas waa crossover waxaad ku xiri kartaa router ilaa router oo fast ethernet isku xiri karto ama switch ilaa switch oo wixii isla way kala bedeleen moogtay halkan markan ka taabtiyeen halka waxaad ku arkaysaa cover straight through macnaheedu waxa weeyaan in xarigaas coverka ah ay waa straight marka straight waa wixii kala jeeda for example imika router iyo switch da isma leh waa laba shay oo kala gooniya marka router iyo switch waxaan ku xidhanaa xariga straight-ka sidoo kale ma garanaysaa laptopka iyo switch-kana xariga waxaan ku xidhanaa straight-ka routerka iyo switch-kana xarig straight-ah computerka iyo switch-kana xarig straight-ah haddaan laakiin halkaan router soo dhigo ama switch soo dhigo waxaan ku xidhi lahayn cross over-ka ayaan ku xidhi lahayn saana taa ila socda kana waad yar taabanaysaa click saan baad yar taabanaysaa xariga saan baad odhanaysaa kan marka saas iskugu xidhayaa fast ethernet wasku xoreyna fast ethernet 1 may garat wakaas waka xarigi waka saas isku xoraya mood computer kana laptop kana waa saasun iyagana fast ethernet wasku xoraya dag fast ethernet kana fast ethernet kana sidoo kale waan soo qaadaya kana dhigayaa sidoo kale fast ethernet ay garat markaasaan inta saamaad kaga shaqeynaa addresska aan siinayna wuxuu noqonayaa 192.168.1.0 iska dheh /24 iyo noqonaya /24 waad garanaysaan kan waa network ID marka saas ayaan diraa ku sameeynaa kan waa network ID marka routerka wan kale kana tuugan siinayna kuwa natriga wixii ku shaqeynaysa natriga fokan kala siinayna marka hadaba configure garanaysa saas uma laba jeer loo taabanaya daaqadan uu ku soo saaraya power ka yar halka ka soo jeeda power ka baad office ka siinaysa hadii kale power ka saatira ma shaqeynay power ka office ka leedahay marka wax dhigan waxa maartay in ka serial oo kale marka xaliga serial ka aan dhigan doono saas kaga duligaysa ka waa serial ka laakiin gooli serial meena garwaanaysa tusaya power ka marka jeedid command line kiisa tagaysa saas oo waranaya cashirkan aniga hagaajiyay oo uu yeelay madaragtay يعني مثلا كلردان iyo waxaan hagaajiyay kalarkan runtii waxaad ka hagaajin kartaa halka option ka tagi
preference ga tagaysaa fontiska halka ka dooranaysaa imika ka qoraalka 13 baa ka dhigay kan kale header kana waxaan ka dhigay 8 maaragta daaqada yani mesela background kana black baan ka dhigay cashirkana cadaan baan ka dhigay waa sidaan aad u arkaysaan saana waad la soconaysaan kaas marka cashirkeena aan bilaabano sorry about that okay halkeen ku tuuray okay marka router kan galno aan xidhayahay marka waxaan leenahay maanta no waxaan leenahay ashay no waan leenahay haleen en waxa weeyaan waa enable marka leenahay config markaan nidhaano waxaan leenahay host name oo magacaan ku qoraynaa router kan waa router remote waxaan iska leenahay r1 baan ku qornay ka saas u qaadana mar walba r1 sa halkaas aad ka arki doontaa okay interface baan leenahay haye interface waa fast ethernet baan kaga xidhi doonaa 0/0 enter macnaheedu waxaan ka wadaa allahumma salli marka macnaheedu waxaan ka wadaa interface-kan marka macnaheedu waxaan ka wadaa interface-ka halkaan kaga xidhayo iyo fast ethernet 0/0 ayaa la socda marka internet fast ethernet sida IP address ka saasa loo siiyaa 192.168.1.1 baan isaga siinayna waad garanaysaan 255.255.255.0 macnaheedu waxa weeyaan sorry maxaan kharibay 255.255 sorry tamba 0 okay maxaan kharibay afartu waa halkan qoro waxay ku maqanahay way saasan leenahay no shot baan leenaynaa marka interface waa ka soo kacay waxaad arki doontaan haddii aan sii raacno in cashirkii oo bilowday yani mesela kuwa green noqday labadii wada green switch kan hadaan tagaynaa isagana sidoo kale hal mar baan ka wada bedelay isagana waxaan leenahay enable en waa enable ama enable waa wada qori kartaa haddii rabto marka en markaan idhaahno haddaan tab ka taabatid enable saas uu ugu dhamaystirayaa marka waxaad leenahay config sidoo kale IP interface kan waa ka duwan yahay marka waa switch waa VLAN buu ku shaqeeyaa by default waa VLAN 1 marka interface VLAN 1 baad leedahay IP address baad leedahay waxaad leedahay 192.168.1.2 because saaxiibkii baa 1 qaatay saaxiibkii baa iyo routerka ahaa baa 1 qaatay isagu marka waa inuu 2 qaato 2 waa inuu qaato no shutdown baan iyadana leenahay haddii ilaahay yiraahdo waa inaga xidhin marka aad tiraadid mar walba waxaa la qoraa IND ama control Z waa ka bixitaan WR waa yani waxay ka dhigan tahay waa right ama copy running config bay ka dhigan tahay ma garatay allahumma salli routerka kale eeg waxa odhanaynaa end waxa odhanaynaa copy taasna waa la isticmaalaa taas marka imtixaanka kugu imaan copy run static config ma garatay kuwaas taas imtixaanka inagu imanaysaa copy running config start up config marka adiga copy marka tabka taabanaysa tan yar tabka tabka ku dhamaystiraysa copy umbaad odhanaysaa running r umbaad taabanaysa isaga dhamaystiraya oo configta ku darsanaya s umbaad haddana taabanaysa start up config isaga dhamaystiraya enter umbaad leedahay ku booking yani mesela waa ku xafidaya taasi waa taa allahumma salli ala sayyidina muhammad okay labadaas ma sameynay waxaan sameynaynaa oo kale markaan labada sidaa sameynay switchadii baa inoo haray computeradii baa inoo haray computerka saana odhanaynaa isaga laba kaliya uma siin desktopka tagi IP configuration ka tagi static gas hadduu dynamic yahay static gas aad ka dhigaysaa marka muxuu ahaa 192.168.1.3 baan isaga siinaynaa waa class B 192.168 kaasna yani waa DHCP ga numberka uu qaadan karo oo qaadan doono hadii ilaahay yiraahdo numberka uu qaadanayo yani mesela DHCP waxaan ka wadaa yani numberka au routerku leeyahay default gateway u noqonaya marka waa .1 taas halkaas uu ka qaadanaya kan waa sidan bay sheekadiisu ku dhantahay isagana kana waan taabanaynaa sidoo kale waxaan odhanaynaa IP config
waxaan 192.168.1.4 in kan sabab maska ganay isagana sinay default gateway gishana waa maxay waa 192.168.1 waa default gateway ga DNS ma baahna marka waa sidaas markaas waa sidaas weeyaan marka sheekada soo tahay kaliya maxaa inoo dhiman hadda inaan yani waqti badan inaga sii cuno marka maxaa inoo dhiman maanta imika inaan connectivity aan dhamayno because halkan maxaan isku nidhi cashirkeena halkan noo soo noqo waxaan nidhi introduction baa ka bixinay introduction kiira waan ka bixiyay oo badnayn serialkii maanta waan ka daayo ethernet baan isticmaalay because serialku waa laba routerna waxay nooga doon wax la yiraahdo ma garanaysaa protocolada soo socda rib iyo static iyo waxbay naga rabaan laba switch baan sameeynaa baan nidhi marka labadii switch baan ka daynay because maadaama labadii aan ka daynay router because sababta oo ribta ama garanaysaa static oo casharada dambe u dhiganayno iska runtii hal router iyo hal switch baan isticmaalay labadii computer laakiin waan sameynay addresskii waan siinay connectivity hadda inaan hubino oo tii u dambeysay ay noo dhiman connectivity gaana aan hubino inay iswada gaarayaan waxaan sameynaynaa routerku inuu ku bingarayn karo bingi baa lagu eegaa inuu gaari karo isagu isgaari karo horta inuu isgaari karo isagu waa isgaaraya for sure enough inuu gaari karo switchka waan yar sugaynaa mar walba bingiga ugu horeeya ama labada bingiga ugu horeeya way baxdaa inta kale waa ka laba baxday way gaadhay inuu waa ka si fiican switchkiina uu gaarayaa bal inuu haddana routeradii gaarayo baalki muxuu ahaa computeradii kii lambar 3 aan siinay isagana hal xabo kulay ka waa kaas marka inka toos u gaaraya kii oo lambar 4 aan siinay waan eegaynaa isagana waa kulay hal xabo waa kaas haddana waa gaaray waa kaas marka halkan router ka configure gareena way iswada gaarayaan bal haddana xaqii computerada aan ka eegno ping command promptiga tagaysaa waxa leedahay ping waxa leedahay 192.168.1.1 iyad leedahay marka ping waa leedahay waa routerkiisi reply hadduu ku yiraahdo micnaheedu waxa weeye waa gaaray bal switchkana waan ku eegaynaa inuu gaadho switchka oo ku xidhan isagana balan sugno wuxuu ka keeno waa kaas hal xabo mar walba waa baxdaa inta kale waa okay weey waa ka afartii saaxiibkiisa oo for inuu gaaraan eegana hadana saaxiibkiina waa gaaraya sure enough Allahumma salli ala sayyidina marka connectivity-gina way gaadhaysaa marka waxa weey bal maanta intaas ayaan ku fiirinay intaas ayaan packet tracer ku fiiriyay marka waad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh casharada kalena way ka marba ka dambeysay si badanaysa topology-du marba ka dambeysay hawshu si badan tahay marka la isla socdo aad baa idin salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh